بسم الله الرحمن الرحيم macaamiisheena sharafta leh ee ku xiran shirkadda Dallas Real Estate walaalayaal soo dhawaada waxaa iib ah booskan waa meesha hadda idin muuqato waxaa ka dhisan darbigii guriga meesha ka dhisnaa jiray darbiga bas ka soo haray waa dhismo burburay marka iska boos bannaan laakiin dhagaxan hadhowta dhisi tagto kala kaashiyo ku naqanaa waxa uu ku dhow yahay laamiga waliba isgoyska soos degmo ahaan walaalayaal wuxuu ku yaalaa degmada Dar es Salaam laamiga soos hormara ee ka yimaado fagax wuxuu kala baraa marka soos timaado degmooyinka Dar es Salaam iyo Hurwaa marka waa qaybta qorax u dhaca ee degmada Dar es Salaam ka tirsan ekis yaaqshiid waagi hore yaaqshiid ahaa jirtay cabirka booskaani waa 25 waxa uu haystaa laba wadadan iyo wadadan kale ee luuqa ah laamigana uu dhow yahay laamiga waxaa ka xigo sida filaya 7 boos oo kali ah laamiga waa meesha saddex caasiga uu maraayo laamiga ka timaado waa booska oo ku dhamaanayo isgoyska ah dhinacana wada kale ku leeyahay soo dhawaada gurigana dhinacan ka saaran soo jeedkana darbigan wareegsan oo geedahuudka uu ka baxay xaafad aad u fiican jihooyinkiisa hadii aan ka hadlo galbeed ujeed iyo waqooyi koonfur ujeed galbeed ujeed iyo koonfur ujeed jidka dhinaca kana waa xaafad si fiican loo degan yahay wadada dhinacan ayaa aadaa guryaha tuulooyinka ka dhisan dhankaas waa dhankii laamiga waa aragtaan sida u dhisan tahay horay waxaa nooga muuqda masaajid gurigan qiimihiisa hadii aan ka hadlo qiimaha lagu rabo hadii aan ka hadlo walaalayaal waxa lagu rabaa 68,000 macdalaad iyo heshiis soo dhawaada xaafadan dhisan ayuu ku yaalaa horay guriyaha silooyinka ayaa sii muuqda waa meel aad u dhisan safka soo horjeedana gurigan jeengada ah ayaa ku jiro gurigan jeengada ah meeshaan bannaan oo darbiga ka dhisan yahay iyo gurigan ayuu diris leeyahay xaggana waxa waaye meelo ganacsi iyo garaash ayaa ku yaalaan soo dhawaada دوكيومنتنا محمد سياد برre ka faa'iideyso wacan bismillaahir rahmaanir rahiim macaamiisheena sharafta leh ee ku xiran shirkadda Dallas Real Estate walaalayaal soo dhawaada waxaa iib ah booskan waa meesha hadda idin muuqato waxaa ka dhisan darbigii guriga meesha ka dhisnaa jiray darbiga bas ka soo haray waa dhismo burburay marka iska boos bannaan laakiin dhagaxan hadhowta dhisi tagto kala kaashiyo ku naqanaa waxa uu ku dhow yahay laamiga waliba isgoyska soos degmo ahaan walaalayaal wuxuu ku yaalaa degmada Dar es Salaam laamiga soos hormara ee ka yimaado fagax wuxuu kala baraa marka soos timaado degmooyinka Dar es Salaam iyo Hurwaa marka waa qaybta qorax u dhaca ee degmada Dar es Salaam ka tirsan ekis yaaqshiid waagi hore yaaqshiid ahaa jirtay cabirka booskaani waa 25 waxa uu haystaa laba wadadan iyo wadadan kale ee luuqa ah laamigana uu dhow yahay laamiga waxaa ka xigo sida filaya 7 boos oo kali ah laamiga waa meesha saddex caasiga uu maraayo laamiga ka timaado waa booska oo ku dhamaanayo isgoyska ah dhinacana wada kale ku leeyahay soo dhawaada gurigana dhinacan ka saaran soo jeedkana darbigan wareegsan oo geedahuudka uu ka baxay waa xaafad aad u fiican jihooyinkiisa hadii aan ka hadlo galbeed ujeed iyo waqooyi koonfur ujeed galbeed ujeed iyo koonfur ujeed jidka dhinaca kana waa xaafad si fiican loo degan yahay wadada dhinacan ayaa aadaa guryaha tuulooyinka ka dhisan dhankaas waa dhankii laamiga waa aragtaan sida u dhisan tahay horay waxaa nooga muuqda masaajid gurigan qiimihiisa hadii aan ka hadlo qiimaha lagu rabo hadii aan ka hadlo walaalayaal waxa lagu rabaa 68,000 macdalaad iyo heshiis soo dhawaada xaafadan dhisan ayuu ku yaalaa horay guriyaha silooyinka ayaa sii muuqda waa meel aad u dhisan safka soo horjeedana gurigan jeengada ah ayaa ku jiro gurigan jeengada ah meeshaan bannaan oo darbiga ka dhisan yahay iyo gurigan ayuu diris leeyahay xaggana waxa waaye meelo ganacsi iyo garaash ayaa ku yaalaan soo dhawaada
دوكيومنتيغana maxamed siyaad barre ka faa'iideysi wacan bismillaahi raxmaani raxiim macaamiisheena sharafta leh ee ku xiran shirkadda Dallis Real Estate walaalayaal soo dhawaada waxaa iib ah booskan waa meesha hadda idin muuqato waxaa ka dhisan darbigii guriga meesha ka dhisnaa jiray darbiga bas ka soo haray waa dhismo burburay marka iska boos bannaan laakiin dhagaxan hadhowta dhisi tagto kala kaashiyo ku naqanaa waxa uu ku dhow yahay laamiga waliba isgoyska soos degmo ahaan walaalayaal wuxuu ku yaalaa degmada Daarisalaam laamiga soos hormara ee ka yimaada fagax wuxuu kala baraa marka soos timaado degmooyinka Daarisalaam iyo Hurwaa marka waa qaybta qorrax u dhaca ee degmada Daarisalaam ka tirsan ekis yaaqshiid waagi hore yaaqshiid ahaa jirtay cabirka booskaani waa 25 waxa uu heestaa laba wadadan iyo wadadan kale ee luuqa ah laamigana uu dhow yahay laamiga waxaa ka xigo sida filaya 7 boos oo kali ah laamiga waa meesha hadda caasiga uu maraayo laamiga ka timaado waa booska oo ku dhamaanayo isgoyska ah dhinacana wada kale ku leeyahay soo dhawaada gurigana dhinacan ka saaran soo jeedkana darbigan wareegsan oo geedahuudka uu ka baxay waa xaafad aad u fiican jihooyinkiisa haddii aan ka hadlo galbeed ujeed iyo waqooyi koonfur ujeed galbeed ujeed iyo koonfur ujeed jidka dhinaca waa kana waa xaafad si fiican loo degan yahay wadada dhinacan ayaa aadaa guryaha tuulooyinka ka dhisan dhankaas waa dhankii laamiga waa aragtaan sida u dhisan tahay horay waxaa nooga muuqda masaajid gurigan qiimihiisa haddii aan ka hadlo qiimaha lagu rabo haddii aan ka hadlo walaalayaal waxaa lagu rabaa 68,000 macdalaad iyo heshiis soo dhawaada xaafadan dhisan ayuu ku yaalaa horay guryaha silooyinka ayaa sii muuqda waa meel aad u dhisan safka soo horjeedana gurigan jiingada ah ayaa ku jiro gurigan jiingada ah meeshaan bannaan oo darbiga ka dhisan yahay iyo gurigan ayuu diris leeyahay xaggana waxaa waaye meelo ganacsi iyo garaash ayaa ku yaalaan soo dhawaada دوكيومنتيغana maxamed siyaad barre ka faa'iideysi wacan bismillaahi raxmaani raxiim macaamiisheena sharafta leh ee ku xiran shirkadda Dallis Real Estate walaalayaal soo dhawaada waxaa iib ah booskan waa meesha hadda idin muuqato waxaa ka dhisan darbigii guriga meesha ka dhisnaa jiray darbiga bas ka soo haray waa dhismo burburay marka iska boos bannaan laakiin dhagaxan hadhowta dhisi tagto kala kaashiyo ku naqanaa waxa uu ku dhow yahay laamiga waliba isgoyska soos degmo ahaan walaalayaal wuxuu ku yaalaa degmada Daarisalaam laamiga soos hormara ee ka yimaada fagax wuxuu kala baraa marka soos timaado degmooyinka Daarisalaam iyo Hurwaa marka waa qaybta qorrax u dhaca ee degmada Daarisalaam ka tirsan ekis yaaqshiid waagi hore yaaqshiid ahaa jirtay cabirka booskaani waa 25 waxa uu heestaa laba wadadan iyo wadadan kale ee luuqa ah laamigana uu dhow yahay laamiga waxaa ka xigo sida filaya 7 boos oo kali ah laamiga waa meesha hadda caasiga uu maraayo laamiga ka timaado waa booska oo ku dhamaanayo isgoyska ah dhinacana wada kale ku leeyahay soo dhawaada gurigana dhinacan ka saaran soo jeedkana darbigan wareegsan oo geedahuudka uu ka baxay waa xaafad aad u fiican jihooyinkiisa haddii aan ka hadlo galbeed ujeed iyo waqooyi koonfur ujeed galbeed ujeed iyo koonfur ujeed jidka dhinaca waa kana waa xaafad si fiican loo degan yahay wadada dhinacan ayaa aadaa guryaha tuulooyinka ka dhisan dhankaas waa dhankii laamiga waa aragtaan sida u dhisan tahay horay waxaa nooga muuqda masaajid gurigan qiimihiisa haddii aan ka hadlo qiimaha lagu rabo haddii aan ka hadlo walaalayaal waxaa lagu rabaa 68,000 macdalaad iyo heshiis soo dhawaada xaafadan dhisan ayuu ku yaalaa horay guryaha silooyinka ayaa sii muuqda waa meel aad u dhisan safka soo horjeedana gurigan jiingada ah ayaa ku jiro gurigan jiingada ah meeshaan bannaan oo darbiga ka dhisan yahay iyo gurigan ayuu diris leeyahay xaggana waxaa waaye meelo ganacsi iyo garaash ayaa ku yaalaan soo dhawaada دوكيومنتيغana maxamed siyaad barre ka faa'iideysi wacan